madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirada nagala xubnaha nagala jooga golaha wasiirada warasaabka gobolka Maroodijeex meeyarka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge odayaasha mashruucan la soo shaqeynayay shirkadda shaqada inoo wada magaceeda la yiraahdo COCC oo shirkad laga leeyahay dalka China qolada tayada shaqada inoo ilaalinayso iyaduna company laga leeyahay dalka Jarmalka oo la CES Consulting Engineering Salzgitter iyo dhammaan cid kastoo maanta halkan u timid inay shaqadan qayb ka noqoto waan salaamaya mudane madaxweyne waxa laga yaabaa markii aynu furaynay mashruuca wajigii koobaad biyaha inay dadku ku arkeen xafladda markad xarig ka jiraysay laakiin waxaan ogsoonayn bulshadu in madaxweynuhu marar aad u fara badan isagoo kamaradoodan iyadoo warbaahinta laga sheegin mashaariicdan kormeer ku yimaado haday noqoto qaybta hore dhamaatay iyo haday noqoto qaybta hadda socotaba iminka dhaamka kala qoray oo kala ata madaxweynuhu taasoo jeer buu shaqada soo kormeeray si uu isagu indhihiisa ugu arko shaqada socota marka maanta inaad halkan u timitay inagoo u joogna arrin muhiim ah oo ah barkadii ugu dambeysay qorshaha biyaha Hargeysa hadda socda dhameystirkeedii maaha dhagax dhigeedii dhameystirkeedii mudane madaxweynaha halkan u timitay oo sida injineerku sheegay noqonaysa mashruucan afartii barkadood ku jiray ku kala teersanaa afarta degmee magaalada gacan libaax oo hore u soo dhamaatay maxamuud haybo hore u soo dhamaatay axmed dagax iyo tii dhexe magaalada iyaduna dhamaatay oo aad iyo isaguna u heliyo dadka garab degan iminka barkada weyn ama keedka dhexe magaalada biyaha ma helaan goos kala sareynta dhulka ay la sameeyeen oo isagana halka laga taago isaguna dhamaaday sida injineerku sheegay mashruucan waxa 160 kilomitir oo bayba 140 ma dhamaaday 19 bay noo dhiman madaxweyne hadii aan u sheegno mashruucii yaray ka horeeyay shirkadda Coca-Cola Africa Foundation laga taageertay waa dhamaaday afar barkadood yar buu haayo kan ka sii dambeeya laakiin kuwana horta la horbiyeyn doona kadib ay qorshaha ayaguna raaci doonaan oo barkad baa daba taala maxamuud haybana way sii daba taala tan laba yar baa daba yaala mid buurtina naxar taalo midna ay ka sii dambayso madaxweyne waa ilaahay mahadi mashaariicda caynkan ee waaweyn waxay ku hirgalaan nidaam dawli oo si sax ah u shaqeynaya nidaam dawliya oo si sax ah u shaqeynaya oo ilaalinaya wixii heshiiska lagu ahaa amba heshiiska aynu kula hayn qolada tayada inoo ilaalinaysa qolada shaqada inoo fulinaysa iyo qoladayna maalgelisaba marka maanta mashruuceeni horena inuu dhamaado oo maalintii October 2022 aad madaxweyne xarig ka jartay kadib ay bulshada fara badan oo inta cusub ee kala atay system ku soo biirtay maanta ay tahay 15 kun oo guri dhalinyaro 20 jiro habliyayna wala waligood gurigooda qasbad ku arag ay markii koobaad gurigooda qasbad ku arkeen biyood oo runtii Hargeysa wax badan ka bedeshay haday noqoto dhaqaalaha dadka jeebkooda ku haraya ee booyadii ay ibsan jireen ka soo haraya iyo hadii ay noqoto biyaheena oo si joogto ah caafimaadkooda loo ilaaliyo madaxweyne oo shaybaarkeenu yahay iminka shaybaarka biyaha Somaliland lagu baaro meelo Somaliland ka baxsan runtii ayna martiyaan inoo yimaadaan markii biyaha baari halkii ugu dirlaan Nairobi ama Dubai ama meelo kale magaalo badan oo Soomaalidu leedahay shaybaarkaasina si joogto ah u ilaaliyo biyaha geedebla ka imanaya kuwa barkad weyn ku soo dhacaya ilaa guriga laga daba tago guriga laga soo qaado sambalka oo xaafadaha xitaa lagu wacyi taangigiina hal maydho hal nadiifiyo taasna runtii ay wax weyn ka bedeshay bulshada ilaa hadda ka faa'iideysatay runtii mashruuca wajigiisa hore bulshada kale sugaysana runtii diilo iyo aaminaad ay aamineen shaqadii aynu wadnay ay kaantay runtii oo hadii tii hore mira dhashay tan dambana runtii kalsooni weyn ay ka qabaan madaxweyne arinta oo runtii adiguna aad ugu baraarugsan tahay halabuurkeeda iyo hindisaheediina runtii ay ka soo bilaabatay 2017 markii doorashada ka soo baxay su'aashan weydiisay cimriga ceelashu muxuu yahay amba joogteynta biyuhu muxuu yahay taasina waa su'aal muhiim ah maanta waxa ilaa hadda inoo diyaara 3 cool oo qadan oo tishaabadii ka baxay oo ku yaala deegaanka Laasduure oo dhameystiran oo mashruucan qayb ka noqon doona laakiin anaga qorshahaygu wuxuu yahay bal in lagu dadaalo sidii loo heli lahaa intaynaan mashruuca fulin wajigiisa labaad ilaa 3 ceel oo kale oo kaaladuna taladii iyo wada tashigu waa ku jirtaa insha Allah waan heli doonaa ugu yaraan 2 ceel ama 3 ceel oo kale in lagu daro halka madaxweyne aadiyaduna ogsoon tahay shaqada inaga socotaa kalqoray oo dhismaha dhaamkaas oo isaguna alla nagu guuleyn doonaa runtii meel wanaagsan maraya sidoo kale waxaan dhignay madaxweyne marka siyaaska dhaamkii labaad Hargeysa yeelanaysa oo isaguna markii la eegay meesha ugu haboon biyo badan qaban karta ilaa 8 milyan mitir cubic oo wax weyn baahida Hargeysa hal mar inaga tari doona oo ku yaala deegaanka anaya biishinaha ka dambeeya aynu uga faa'iideysan karno baabkii hore in ka guurna Hargeysa inaan ku soo xidhno oo inaan infrastructure cusub in maal gelino aynaan runtii u baahan doonin
markaa daraasadiisii hordhaca kadib qorshayaal ay wakaaladu gudbisay qaar ka mid a asxaabta maxaana dhinacyada nagala shaqeynaya horumarinta waa la aqbalay daraasadiisii hordhac ahayd way gabagabowday dhaamka waxaa suuragal ilaa 8 milyan oo mitir kiilo isagana in lagu qaybin doono adduunka marka hore dee lacagtu waa dambaysa laakiin qorshaha iyo talada ka horeysa qorshihii iyo taladii waa inoo socotaa madaxweyne muhiimaddu waxa weeye madaxweyne mashruucan wejigiisii koobaad waa inaga dhammaaday 15 kun oo qoys oo cusub oo Hargeysa xaafadaheeda kala duwan baa ka faa'iideystay qorshihii wejiga labaad ceelashii hordhac ahaa saddexdii ceel ugu horeeyay waa inoo dhammaadeen waa yeelan mashruucana 3% ayuu maanta dhameystiran yahay sidaan sheegay shaqooyinka caynkan waxaa ku hirgalaan in wixii lagu heshiiyay contract ahaa dhinac walba dhinaciisa oo ilaasho shirkadu of course danteeda ilaalinaysa haddii aniga ama dawladda hoose Hargeysa ay wax ku habsaamaan iyadoo waa financial claim maxkamad baa miiska u saaran ganaax lacageed annaka markay wax nagu habsaamaana waa saasilaak markay shaqeeyaan waad mahadsantihiin way marka already talaabooyinka qaar ay ku habsaameen oo cuquubooyinkii loo baahnaa saarnay waa jiraan qaar aanay ku habsaamin oo wali waqti ay haystaan waa jiraan laakiin mashaariicda inta la leeyahay infrastructure kulliba isbedelo xagga waqtiga waxa weyn madaxweynuhu waa xoogaan oo haddii aanu fahansanayn duruufaha shaqooyinka caynkan ilaa mashruuca hore muu hirgalaan maalin kasta shirkad baan bedelayna maalin kasta shirkad madaxweynuhu markuu reportka akhriyo meesha tago uu ku qancay marka madaxweyne waan kaaga mahad celinaya waxa noo haray 17% oo u badan mashruucan u badan chamberadii biyaha laga controlay iyo beebka oo 19 kilomitir meelahaas oo markii dambe aan ku soo kordhinay beebab daalo la bedelay ama meesha ka baxay markii ay beebalan beebka hore ahaa ku soo kordhinay noqonay inta hadhay madaxweyne waa intaas laakiin qorshaha biyaha Hargeysa bulshada reer Hargeysa iyo dadka muxsiniinta waxaan sheegaynaa de maanta wixii yaalayna inaan wada isticmaalno sax maaha generationska naga dambeeyo waana mustaqbalkooda dhignaa qorshaha biyaha Hargeysa dawladda dhexe miisaaniyadeedu wixii kolba laga kabo wakaalada biyaha waxaan u baahanahay dadka muxsiniinta iyaga laftooda inay aqoonsadaan in biyuhu yihiin meel wanaagsan oo wax ku darsan karaan laakiin de waxaad ku qanacday baad wax ku darsan kartaa anaga waxaad nooga baahan tahay inaad xisaabteeda ku qanacdo qorshahayga inaad cid doonayso u yeedho qorshe shaqaynaya oo aad ku qanci karto marka madaxweyne halkan waan kugu soo dhaweynayaa aad baad mahadsan tahay